ma is aragtaa in badan inaad noqotay qof ay ku adag tahay inuu isbeddel ku sameeyo noloshiisa sida inaad meel ku xayran tahay oo kale sanadka ka dambeeya halka dadka asaagaaga ah ay sii wadaan inay hore u socdaan iyagoo noloshooda horumarya maalin walba sida laga soo xigtay inuu nafsiga waxaa jira laba dhaqan oo aad samayso oo ka hor istaagan naftaada inay horumar samayso haddii aad isku aragto mid ka mid ah dhaqamadaas hawalwelin muuqaalkan kadib waxaad noqon doontaa qof wacyigiisa sareeya oo diyaar u ah inuu noloshiisa horumariyo intaan u gudagay mawduucina waxaan si sharaf leh kaaga codsanayaa hal like hal subscribe inaad saarto muuqaalkan haddana kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta dhaqanka koowaad waxaad si aan dhammaad lahayn ugu dhex wareegtaa baraha bulshada imise jeer ayaad naftaada u sheegtay inaad keliya saacad ku jirayso baraha bulshada kadib ma is aragtay adigoo saacado kusii jira adigoon xitaa hal shay oo faa'iido leh ka faa'iidaysan muddadaas aad ku jirtay cilmi baaris la sameeyey ayaa sheegaysa isticmaalka xad-dhaafka ah ee baraha bulshada siiba tiktok in uu ku keenayo caafimaadkaaga maskax wasakhoobid daal badan adigoo xitaa aan howl qaban fikir aan dhammaad lahayn niyad jab iyo rajo la'aan tusaale yar saacadda uu moobeelkaaga jaajar ku jiro oo aad weydo waxaad isku mashquuliso waxaad si dhab u xisaabisaa naftaada adigoo iscanaanta muddadaas yar waxaadna go'aansataa muddadaas yar inaad isbeddel ku samayn doonto noloshaada kadib haddana waxaad ku laabataa dhaqankaagii hore ogow mar walba oo aad diido naftaada inaad ka adkaato waxay la micno tahay inaad adiga sabab u tahay noloshaada inaad horumar samayn weydo dhaqanka labaad waxaad soo jeedaa goor dambe habeenkii adigoon aqoon xitaa sababta aad u dhafrayso imise jeer ayaad is dhahday caawa ciyuu baan seexan doonaa haddana ma is aragtay adigoo dhaafay wakhtigii aad go'aansatay inaad seexato hurdo la'aantu iyo dhafarka badan waxay noloshaada waxayna galaafataa xasuustaada dhafarka xad-dhaafka ah wuxuu ku dhexalsiiyaa 3 shay oo halis badan midda koowaad inaad noqoto qof cibaadada ku liita khaasatan salaada subax inaad in badan waqtigeeda ku tukan weydo midda labaad inaad noqoto qof caafimaad ahaan liita jirkiisuna tamarta iyo adkaysiga gabo midda saddexaad inaad noqoto qof howlihiisa isduldul fuulaan oo ay joogteen oo dhan noloshiisa yeelan weydo haddii aad rabto inaad noloshaada horumariso dhafar oo idin noloshaada ka tirtir dhaqanka saddexaad waxaad tahay qof walbahaarsan mar walba oo si fududna ku niijaba khibradu waxay xusan in walbahaarku daba dheeraado uu keeno daal badan inaad ka walwasho kana cabsato howl xitaa adigoon bilaabin cabsi aad ka qabto howshaas inaad ku fashilanto waa dhaqan maangaabnimo cabsida iyo walbahaarka joogtada ah ogow waxay wiiqaysaa awooddaada waxayna si fudud ku burburinaysaa kalsoonidaada dhaqanka afaraad waxaad ka buudaa qorsheynta beri waa kan qodobkoo ay sameeyaan dadka guulaystay waxay sii qorshaystaan waxay beri qaban lahayn intay seexan ka hor markaad soo kacdo subaxii adigoon lahayn qorshe cad durbo waad dib dhacday waxaad ku bixisaa tamar qaali ah subaxii inaad qorshayso waxaad qaban rabto maanta dhaqankan haddii aad joogtayso wuxuu kaa dhigayaa qof mashquul ah laakiin aan lahayn wax soo saar weyn qof firfircoon laakiin aan horumar samayn isku day inta aan seexan ka hor in aad sii qorshaysato saddexda howlood ugu muhiimsan oo aad beri qaban rabto dhaqanka shanaad waxaad dayacdaa caafimaadkaaga jireed maalintaada inay kuu dhammaato adigoon ugu yaraan xitaa socod dheer aan samaynin kuma wanaagsana jimicsigu wuxuu kor u qaadaa caafimaadkaaga waxaadna ka helaysaa hurdo wanaagsan wuxuuna yareeyaa walbahaarkaaga wuxuuna dhisaa kalsoonidaada iyo shakhsiyadaada haddii uu kugu adag yahay jiim iyo jimicsi adag aadan waqti u helin uma baahnid xitaa keliya waxaad u baahan tahay inaad maalin walba samayso 30 daqiiqo oo socod ah dhaqanka lixaad waxaad naftaada ula hadashaa si xun sheeko noocay ah ayaad naftaada u sheegtaa markuu maalintu dhammaato naftaada sida aad ula hadasho waa muhiim dadka fashilmaya waxay inta badan habeenkooda ku qaataan in ay keliya eegaan khaladaadkooda iyagoo yasaya naftooda kadibna waxay ku fikiraan hebel waxaas ayuu haystaa aniga maxaan u haysan waayey ogow naftaada maalinta aad la barbardhigto dadka kale ayaad fashilantay yaysan kuu muuqan keliya meesha aad ku liidato iyo waxyaalaha aadan qaban karin nolosha diiradda saar naftaada wax ay ku fiican tahay kuna dhiirigelin naftaada wax ay qabatay maanta ugu yaraan 100% hal xitaa haddii ay yihiin shaygaas ay naftaada ku fiican tahay joogtay isaga ayaa horumar ku gaari doontaa dhaqanka ugu dambeeya dhaqanka toddobaad ma maalgashtid naftaada goorme ayaa kugu dambeysay inaad barato wax cusub oo noloshaada anfacaya dadka fashilmaya maalintooda waxay ula dhaqmaan sida waqti iska ciyaar ah si miir la'aan ah ayay u sameeyaan madadaalo iyo waqti lumis wax isbaridda joogtada ah waxay kaa dhigaysaa qof maskaxdu ka koraya haddii aad rabto xiradaas iyo dayaca aad ku jirto inaad ka baxdo noqo qof xur ah naftiisa ka adag si joogto ah waqtigiisa kaga faa'iidaysta oo maalin walba cusub wax cusub barta haddii aad sidaas samayso ugu dambeyn waxaad noqon doontaa qof heer sare ka gaara nolosha ugu dambeyn xasuuso weliga horumarka had iyo jeer kuma saabsan inaad si adag u shaqayso iyo saacado badan inaad shaqayso balse mararka qaarkood waxa uu ku saabsan yahay inaad si caqli badan u shaqayso ugu dambeyn daawadaha sharafta leh fikirkaagu waa inuu muhiim waxa aad ka faa'iiday muuqaalkan commentiska igu reeb haddii aad ka heshay muuqaalkan like saar la wadaag asxaabtaada share u dheh intaan muuqaalkan lacina ku kulmi doono waxaan idinkaga tegayaa nabad iyo horumar